hadda imaanta ka imaanto magaalada shirka aan u imid wax kale kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay precisely sidii loo maaragtay wax sidii wax looga hortagi lahaa wax looga qaban lahaa labada infection iyo kansar ku dhaca beerka way jiraan in beerka ay keeni karaan ama dhibaato ku keeni karaan waxyaalo kaleeto oo ay ka mid tahay alcoholada laakiin hadda muhiimaddu waxay taagan tahay oo maanta waan ka hadlaynaa waxay tahay labada virus wax kaloo xataa jiri kara siyaabo kaleeto oo la xiriira xitaa dhinaca maaragtay genetiga dhinaca metabolismka haddii ku dhacaan dhibaatooyin ku dhacaan laftigooda beerka saameyn kara laakiin maanta waxaan rabaa aragtay inaad la qaybiso keliya labada infection hepatitis B infection iyo hepatitis C infection maxaa yeelay waxaa noo soo baxay inay yihiin labada ugu khatarsan runtii oo dadka Soomaalida dhibaato ku haysa marka halkan waxaan kusoo bandhigaa slide yar oo macnaha ka sheekeynaya waxa uu yahay hepatitis-ka marka ereyga hepatitis wuxuu macnaha u kala qaybsan yahay laba qaybood qaybta hore macnaha awaari Latin qaybta hore waxay la xiriirtaa beerka ama waxay la xiriirtaa unugyada beerka qaybta dambe oo ah itis-kana waxay la xiriirtaa waxa la yidhaahdo inflammation macnaha meesha waxay noqonaysaa sidii meel maaragtay gubitay oo kaleeto ama furaysa marka wax kale ma ahan hepatitis-ka la sheegayo waa inflammation of liver cells macnaha unugyadii macnaha beerka waxa ku dhacaya inflammation Soomaalida marka waxay tiraahdaa hepatitis waxay yiraahdaan waxay yiraahdaan cagaarshow laakiin actually ma ahan marka la fiiriyo waa ku dhacay beerkii waa primarily inflammation marka inflammation maxaa marka keeni kara marka waxa keeni kara waxyaalo fara badan waa A B C D E laakiin waxa uu khatarsan labada hadda guduudka ah kale ee hepatitis B-ga iyo hepatitis C Soomaalida dadka Soomaaliya ka yimaada waxaan qabaa hadda haddii dadkana ku jiro qolka laynaga baaro A waxaan aaminsanahay kulligeen inuu A la soo maray macnaha waa mid wuxuu ahaa extremely common marka la joogo Soomaaliya isaga marka waxa lagu qaadan jiray haddii qofku la kulmo biyo wasakhaysan ama raashin wasakhaysan uu qaadayo marka waxaan ka wada wasakh markaan leeyahay isaga habka loo gudbiyo waa fecal oral macnaha aragtay waa afkii saxaradii macnaha aragtay macnaha markaan la fecal waxa ka waa saxaradii physics-kii marka qofka soo qaad hadduu qabo infection qabo intuu soo saxarooday uu si fiican isaga dhaqay qofkaas duu raashin kula cuna ama biyo macnaha aragtay ku taabtay cabtid wad qaadaysaa labada kala toonka BDC-da ayaga sidoo kale runtii way badan yihiin laakiin way ka khatarsan yihiin kuwa kala toon marka si gaar ah marka ay uga hadli doonaan labada BDC-da waxa kale meesha ka arki kartaan marka laga hadlayo viruska waxay ka samaysan yihiin genetically noocyo kala duwan qaarna waa DNA virus qaarna waa RNA virus marka laga hadlayo xagga galmada marka viruska hepatitis B-ga la barbar dhigo kan AIDS kan HIV-ga waxa boqol jeer aad loo gudbi macnaha aragtay og yahay ama u fududahay loo gudbiyo bida marka haddii ninka uu qabo uu siin karo xaaskiisa xaas qabtana way siin kartaa marka runtii waa mid aad iyo aad khatar u ah sida laftiisa galmada loo gudbiyaa laakiin bida wuxuu yahay runtii mid aad iyo aad khatar u ah waxa kaloo loo gudbin karaa hooyada maaragtay uurka la cunugeeda ku jira caloosha way siin kartaa sida maaragtay waa habka loo gudbiyo haddii xitaa maaragtay la qaybsado maaragtay sheegay sakiibaha la isku xiiro cirbadaha la isku diro cadayda la isku maaragtay lagu cadaydo iyagana kulli way soo geli karaan sababtoo wax kale ma ahan waxaa dhici kartaa inuu dhiig gaaray haddii qofka cadaydo ama haddii qofka isku xiiro waxaa dhici karta dhiiggiisii inuu meesha gaaray marka isku soo diro waxyaalaha ugu khatarsan oo loo gudbiyo marka laga hadlayo bida waxay tahay inuu qofka la kulmo dhiig wasakhaysan ama dhiig infected ah sura ku yimaado ama cirbada ku yimaado ama sakiinha ku yimaado ama caday ku yimaado hooyadana way gudbin kartaa cunuga way siin kartaa caloosha ku jirta galmadana wuxuu yahay hab kaleeto khatar oo lagu gudbin karo marka cilada waxa waaye waxay aad u haysataa dadka ciyaalka ah oo yariiska ah laakiin way jirtaa awoodka waaweyn oo adultska ku dhici karaa laakiin boqolkiiba 10 oo kaliya baa noqon karta in maxaan ku yiraahdaa ay noqdaan ama ay gaaraan stage-ku noqonayo chronic laakiin qofka haddii uu ku dhaco asagoo weyn boqolkiiba 90 dadku iska celin karaa iska nadiifin karaa marka dadka Soomaalida hadda oo hepatitis B qaba aad arkaysaa waxaan aaminsanahay intooda badan inuu ku dhacay infection ayagoo yaryar oo aysan iska celin marka ay noqdeen maaragtay kuwa viruska muddo ku jiro laakiin waxaa dhici karta iyagoo ka mid ah laftigooda in iyagoo weyn ay la kulmeen laakiin most of them waxay la kulmeen infectionka iyagoo yaryar ciyaal ah marka waa qiyaasi kartaa runtii hadda dhibka ugu weyn wuxuu aad u haysta ciyaalka Soomaaliya jooga oo yariiska ah wuxuu kaloo haysan karaa dabcan dadkii Soomaaliya ku soo dhashay oo ku soo koray iyadoo ma jiri karta cilada
markaas runtii qof walba Soomaali ah oo Soomaaliya ku dhashay ama ku soo barbaaray oo hadda meelahan joogo heli kara in laga baaro way ku habboon tahay in laga baaro haddii macnaha loo ogaado qofka inuu qabo waxaa jira daaweyn la siin karo qofka laga daaweyn karaa haddii uusan qofku ku dhicin uu ka soo baxsaday nasiibada uu soo noqdo viruska qofku waxaa la siin karaa talaal oo la talaali karaa maadaama biid uu talaal leeyahay marka waxaa arkaysaan Soomaaliya ama anaha qaaradda Afrika wixii saxaraha ka hooseeya xaqiiqadii infectionka uu keenay hepatitis-ka aad ugu badaya adduunka marka la fiiriyana waxaad arkaysaa 300 ilaa 400 milyan oo qof ayaa qaba macnaha hadda aan hadlayno qiyaastii waxaa qabta 400 milyan oo qof sanadkii waxaa la aaminsan yahay ilaa iyo 1 milyan oo qof inay u dhimanayaan waxyaalo la xiriira jirooyin ku dhaca beerka oo keenay hepatitis B وقياس كتابنته وحمارات عادي على الترابط. برغم في لقطة فيروس بيدي سيد رنتي وحاس لو إنه سلوه خطري هين وحاسيق خطر سيد محايا لدتك وكله عبادة وقدر كموضوع. إير أو كريه ونصيب له أي أسكعني كمرك ولا نقول ولد الصومالي وسكعلي. ولا مرك هاكل يعني سيد روح كان لسه نسيحهم السيد هم وصل بحين سوى حموجنا سوء بحسين هاي أبتها تسيجي. marka uu ka yahay marka la fiiriyo bida dad waxaan tusay 200 milyan qof inay qabaan kan waxa qabay ilaa qiyaastii 130 milyan dadkaas qaar kamid ah ama handho 28 milyan kamid 28 milyan waxay joogaan Afrika inta kale waxay joogaan Asia iyo meelo kale marka waxa arkaysaa runtii nasiib xumo qaaradda aan ka nimid Afrika especially meesha kale Soomaaliya waxa arkaysaa inay aad ugu badiyeen labada infection bidisiida and that's why marka aan ugu adkeeno dadka Soomaalida runtii inay iska baaraan labada virus hadda sala socotaan haddii aad ogtiin qof family-giina ama qaraabadiina ama xataa ninkan kamid ah haddii ay dhacdo nasiixo inuu hepatitis C qabo dhakhtarku wuxuu sameeyaa ugu horeysa inuu fiiriyo macnaha nooc uu yahay macnaha waxaan ana genotypes nooc uu yahay marka waxaa jira 1 2 3 ilaa 6 oo lixda ugu badan laakiin ilaa waxay gaari karaan 12 laakiin waxa aad loo baaraa 1 ilaa 6 haddii qofku markuu uu yahay infection hadduu yahay ama virus hadduu yahay 2 iyo 3 qofka daawooyinka hadda jira uu shaqeyn karaa waa laga maaragtay badbaadin karaa laakiin qaarkood 1 iyo 4 iyo 5 nasiixo maaragtay daawooyinka hadda jira ku adagtay ku shaqeeyaan haddii waxaad halka afiirsan Soomaalida waxaa ku badan nooca la yiraahdo type 4 wuxuu ka mid ah noocyada runtii dhibka badan in laga daaweeyo haddii marka sidoo uga fiican yahay bida haddii qofka daawo la siiyo oo ay daawo shaqeyso sida qofka waa laga baabi'in karaa macnaha viruskii gabi ahaantiis baaragtay oo baabi'in karta bida laakiin isaga nasiixo ma baxay mar qofka waxay noqonaysaa intuu harta noloshiisa inuu maraba uu keenay halkii ama labkii la qaay maalintii si viruskii xaddigiisa hoos ku dhaco laakiin nasiib wanaag waxaa jirta inta badan dadka bida ama viruskooda maaha active uu yaradansan yahay oo just waa la socdo kidi waxa la dhahaa 6 bilood markaalaya si loo baaro indigooda dalkooda loo fiiriyo laakiin in yar badaawo baahanaysa sida laakiin nasiib xumo daawooyinka qaarkood hadda jira ma shaqeeyaan laakiin nasiib wanaagsan soo socda waxa soo bixaysa daawo kulli maaragtay insha Allah ka qabanaysa nooc uu yahay marka waxa arkaysaan hadaa waxaan Soomaalida inay bid ku badan tahay sidoo ku badan yahay boqolkiiba 10 macna nimanka dumarkan waxa boqolkiiba 10 laakiin dadka Soomaalida oo ku dhacay liver cancer-ka boqolkiiba 7 waxa keenay sida marka waxa hadii maanta hadda meesha wax kala tagaysaa insha Allah waxa kala tagaysaa labada inay badan yihiin laakiin sida uu yahay mid khatarta ku hada kara Soomaalida oo macna ku keena cancer ku dhaca beerka hadda kina meesha fadhiya hadaas ka baartay oo la socotaan inaa qabtaan in qabin wala good laakiin hadii iska baarin waligii waxaan runtii ku talin lahaa adinka iyo familieskiina inaa ka baartaan bida iyo sida labadaba bida waxa la socota qofku soo ku dhicin waligiis ku dhicin in la siin karo talaal laga talaali karo waxa kaloo jira daawooyin labadaba haddii qofka nasiixmo uu ku dhacay uu ka bixin laga daaweyn karo waxa kaloo jira maaragtay hab xataa qofkii lagu la socon karo haddii xataa daawooyinka ay shaqeyn waayaan isha lagu hayn karo sababtu wax kale ma ahan haddii loola socdo si macnaha oo isha lagu hayo oo qofkiisa waxa uu shaqeeyay beerka haddii uu isbedelo kansar ku dhaco laga gaari karaa markuu cusub yahay waxa laga qaban karaa hatta qaybta sir waa la goyn karaa marka la gooyo beerka uu soo dhalaay marka waa arkarta bulmada ku fadhida baaritaanka talaalka
daaweynta iyo la socoshada banaalata ama monitoring ujeedada umid Netherlands ama magaalada Amsterdam waxay tahay waxaan uga qayb galayaa shir cudurrada ku dhaca beerka khaasatan kuwa ay keenaan infections kala hepatitis B hepatitis C shirka waxa isugu imaanaya dad badan oo ka yimid qaaradda Afrika oo kamid ah mas'uuliyiin iyo dad ka socda wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiir oo kulli ka yimid qaaradda Afrika wixii ka hooseeya Sahara waa tahay waxaan filayaa dadka Soomaalida ah ee aad halkan kula kulantay maanta fikrado badan ayaad markaa ula timi maxay ahayd arrinta ugu weyneed dadkan aad ula timi su'aal aad fiican imaatinka maanta aan idinku yimid jaaliyadiina iyo la hadalka aan la hadlo dadka Soomaaliyeed wax kale ma ahan ujeedada ugu weyn waxay tahay dadka Soomaaliyeed inay dareemaan inay aad macnaha ugu badan qaar badan oo inaga mid ah infectionka uu keeno ama infectionska ay keenaan labada virus ee hepatitis B virus iyo hepatitis C virus labadana wax kale ma ahan waxay qofka ay ku dhacaan oo aan iska difaacin ugu dambeynta ku heli karaan kansar ku dhaca beerka marka waxaan u mid Soomaalida halkan joogto inaan la qaybsado waxa yihiin viruseskaas iyo waxa ay keenaan hawlgalkaaga ugu weynaad markaa qabataa waa dalka America inta badan waa runta macnaha waxaan ka shaqeeyaan jooga isbitaalka Mayo Clinic oo shaqadan qabtana waa research waxaan baaraynaa sida ugu badan yihiin labada virus dadka Soomaalida waxaan kaloo baaraynaa nooca ay yihiin genetically waxaan kaloo baaraynaa isbedelada ku dhaca viruseska ugu dambeyntii waxaan xiisaynaynaa inaan ogaano sida viruska iyo qofka jirkiisii ay u wada macaamiloodaan waxaan ka wadaa qofka sida uu isaga celiyo ama sida uu isaga celin qofkii dhulti viruska uga bixi waay oo san uga bixin ay noqon karto ugu dambeyntii inuu ku dhaco kansarka beerka ku dhacayo wixii la mid ah waa tahay in laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inaanay ogeyn in ay qabaan cudurkan calaamado ama astaamo lagu garan karaa ma jiraan su'aal fiican dadka badankooda nasiixumo iyagoo qaba infectionkii haddana wax calaamad oo ka muuqata ma laha in yar baa wax ku soo baxan calaamadaha soo bixi kara marka waxaa ka mid ah jaundice-ka waana taa marka mid kan Soomaalida inay ugu yarta cagaarshow laakiin runtii waxaan ka hadlaynaa waa cudur faafa oo uu keeno virus ama B ama C calaamado marka soo baxa mala inta badan aan ka ahayn cagaarshow laakiin ma badna waa tahay cudurrada markaa waxaan filayaa dhibaato badan ay keenaan dhibaatooyinka maxaa kamid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee keenan kara waxaa kamid ah laba wax mid la yiraahdo liver cirrhosis ama beerka waxaa ku dhacaya cirrhosis ama wuxuu noqon doonaa mid gabi ahaantiisba runtii macnaha dhaawac u gaaray qofka noocaas xal kale ma lahan kan beerka in laga bedelo ama waxaa ku dhici kara kansar ku dhaca beerka iyaga isaga laftigiisa qofkii haddii aan laga gaarin nasiixo qofkii ma aragtay uu dhimanaya marka mid jirta oo muhiimku waxay tahay dadka Soomaaliyeed inay dareemaan labada virus dadka iyaga oo qaba baa haddana inta badan calaamado ma laha marka waxa ugu fiican oo inoo fiican sameeyno dadka inaan ka baarno haddii laga baaro oo laga helo kuwa qaba labadaba laga daweyn karaa waa tahay marka u dambaysa maxaad ku baraarujin lahayd Soomaalida dalka Netherlands ku dhaqan intay naga maqan maanta waxaan runtii aan ku baraarujin lahaa number 1 inaan dareeno muhiimadda ay ku fadhiyaan labada virus waxaan ka wadaa sida ay ugu badan yihiin number 2 waxaan u baahanahay in aan iska baarno kulligeen waliba dadkeena Soomaaliya ku dhashay ku koray in aan ka baarno nooca biyada iyo siida dadka laga helo hadreebaan inaysan ahayn meesha adduunka ugu dambeysay ama meesha nolosha ugu dambeysay labada waxay leeyihiin daaweyn oo qofku wala daaweyn kara waxa laga qaban karaa dadka aan daawada isu u shaqeynin oo dhici karta qaar kamid isu u shaqeynin waxa la gelin karaa hab lagu la socon karo oo loogu ilaalin karo beerka inuu ku dhaco kansar ku dhaca beerka marka runtii waxaan ku talin lahaa in dadka iska baaraan qofka u baahan oo qaba daaweyn la siiyo qofka u baahan in la socdo si looga ilaaliyo ugu dambeynta dadka inuu ku dhaco ama cirrhosis-ka oo beerka dhan uu dhaawacmayo oo xal kale lahayn aan keenin laga bedelo ama kansar ku dhaca beerka aad iyo aad baad mahadsantahay waqtigaaga adiga aan badan thank you